maadaama hadda aysan cusbeen musiibadan ay khawaarijtu geysteen 2017 waa xasuusanaa dad kaloo 1000 qofood ku dhaweey isla barta hadda iyaguna ku dileen maantana mid kala taagan oo xanuun kala ah inay soo celceliyaan oo ay shacbigu kaliya bartilmaameedsan iyagoo dhahaya dawladdan anaga dagaal kula jirna dawladdan la dagaalsanahay maxay tahay khawaarijtu wallahi waxa laga naxawaaye bishan October hada dhamaadka ah ayay ahayd 5 sano ka hor markii ay 14 October ku laayeen dad ku dhow kun waxay dileen iyo waxay dhaawaceen isla bishii 2 isbuuc ka bacdi hotel anigu waan ku jiray bay hadana dad intaas oo kale ta 100 qofood ku dhow ku dileen dhowr boqolna ku dhaawaceen aniga 3 mitir aan soo istaagno ilaahay baa iga xifdiyay shartooda inaysan qofkii rabaan dili karina ilaahay waa ay tusay awalna aaminsanay ummadana way aragtay inta ku dhimata loo naxariisto dad ilaahay ku imtixaanaya si culimo sheegtay waa shuhada nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa uu soo celcelinayaan horta sidiisaba qatl al-abriya iyo dadka masaakiinta birmageyada la laayo waxa way waa ficil al-aajiziin dadka yaani wax matarka ah oo ducafada ah oo wax kale to dhan ka soo dhamaaday ayaa lagu yaqaanaa ficilkaas waxa lagu cabiraa hadda luqada caalamiga waa ficil jabaan yani nin fulay ah ficilkiis nin geesi ah suurtagal ma aha inuu islaan cunug yar dusha ku sida oo radiic ah oo aan 6 bilood xataa gaarin inuu qarax ku dhifto inuu arday shahaado qaadanaysa oo 18 sano wax soo baranaysay jaamacad u socdo inuu la beegto inuu caruur laayo inuu dad masaakiin ah oo warata ah laayo waxa way marka waxay tusinaysaa oo laga qaadanaa kow sida ilaahay suuratul anfaal noogu sheegay horta inay yihiin caduwallahi wa caduwakum caduwal umma inay ilaahayna cadow ku yihiin diintiisa bay bedeleen ummadan ay cadow ku yihiin cadow xaqiiqi ah ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وحيري إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله مركو حكماي ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ضد إلا ورجافو أو سيستمن ما يتكوض الله إلى القرآن كأكو أمري خوارجتا يكون لمده قضاء درغها أيا كجرا أو لما أيوه كستي شرير خوارجتا أيا كشر بدن مركا وحي أسعد علنا يا واسدح شيء مركا وهدف سهلا شعبك إلى الله أيوه نسيد هذا هدف كوضا وإن ضدك اللي كوضا أيكم مع سدان العيان هدف مله رسالة مله قضب كلامنا وحواي لين قضية وأيه كمان هذا كوران حوار سمينا وهو سؤاله ويدي وحنا الدين توحد أنا كل حجستي إن ضد لن أو سكجر أو مساكين يهوين يعرور قرح الحد قال الله حقي دين توجرتها وحنا نصيب درا وهو يقول جوابي وهو دين كم يقول لكن إن ضدك أن وجن إن أمن درس ما يكرنه oo dawladdu aysan aan amnigeeda khalkhal gelin karno ayaa hadaf noo ah yani waxa ka garan kartaa marka waa nool way oo jooga waxa ka garan kartaa marka inay amni darrada abuuraan oo nabadiid yihiin oo dadka inay laayaan inuu hadaf u yahay bay saacad u sheegeen qodobkaasna qodob way hadaf u yahay qodobka saddexaad waxa weeye hadda waxay afcaashan u sameynayaan hadda ka hor 5 sano ka horna way sameeyeen kullama ay arkaan dawladda Soomaaliya inay talaabo ruusi qaadayso oo hore loo soconayo طبعا وياهاس هذا حسوتين زوب مركي سمينا كهر سنة كاس مدحون حسن الشيخ مركو ترى ذاك السيد دقاي شباب هذا هو سال في شباب هذا الحالة قبطي بدنا قاري إذا ما يا اسمي حرده تركي أيوب مدحون حسن فري توبر بدنا بالوضي مركا حنونك أي وركاين أول ما لها سكت دقالة من جرينا يحوي أي مركا إني حسوق لما يستنى يسبه محيلا للجبا كل حاجة ويجبان haddana waxaan u maleynaa waxay u soo nooleeyeen afcaasha noocaas oo kaleeta waxay u jeedaan inay gabaabsiyiin maalmahooda ugu dambeeyay ku jiraan oo la leynayo marka waxay isleeyihiin malaha intaas sii galaaf kartiisa galaafta haweenka iyo caruurta iyo kaciil beela marka wax macnaaha ay leedahay male nimankaas niman jabay way waa niman diin laawayaal ah waa niman akhlaaq lahayn waxa kaliya mudan yihiin waxa weeye yani sida ay xad gudbeen si lamida in ayagana inta la soo qabto kii aan ka tooba gelin dhammaantood la laayay mudan yihiin